so MP akhrisanin hadda baarlamaan u dirto sharci meel laga maro fahmi ayagoo guri qabina soo dooranaysin where does that money come from isma weydiisin lacagta meesha ka keenan inuu pisayno ya CDF munagayo hapo kama peanuts. Let me tell you the role of an MP ni tatu. Baarlamaan MP ga shaqadiisa waa 3 waa representation waxay kamid tahay baarlamaankaas ka hadli waa shaqada mushaar nugula siiyo. Oversight waxay tahay lacagtan dawladda isticmaalayso adii baarlamaanka lagu soo doortay do you question dawladda si lacag u isticmaalayso meeshan hadii lacag la galiyo 20 milyan shaqada la qabtana 2 milyan ay tahay adiga baarlamaan ku jirta hal rabina ka hadasho waa oversight. Legislation na waxa way bills ka sharciga hagaajini hadda amal kibanda waan wada haysanaa Soomaha sharciga lagu mariyay in ruux kasto Kenyan uu yahay uu kibanda haysto constitution ki Kenya qori wadankan wuxuu ku socdo waa sharciga ayaa hagaajiya MP so MP akhrisanin hadda baarlamaan u dirto sharci meel laga maro fahmi MP yaha kale la soo doortay from other counties baarlamaanka markay galaan they know what they are coming to do. Gadoni waa Mushomba soo ma garanaysin waa MP waa Kiambu I think she's a constituency Githunguri waa Mushomba way diiday maxaa way ogta dadka ka dambeeyo oga waa Kikuyu oon akhrisanin hawajaasoma waxay dhadaan sharcigan ma marin karin maxaa dadka iga dambeeyo markaan tago Githunguri way igu qaylinayaan waa lagu buuqay oo UDA tamxa u marin wasbad waxay dhadaan no ani dad ay soo doortay MPs ka soo doorateen go'aan ceenka ma gaari karan dad shaqada qabanayaan fahansan hala doorto dad oo mas'uulkooda qaadaan hala even MCAs by the MCA marka u tagto dad MCA lacag isiyan fees ku bixin duga keeni so you know what he will do next time u budget ka soo marayo haliisu goosan because the public will come to ask for handout. The reality of the truth anu aan mar badan aan sheega mushaara ya member of parliament waa lacag yar wixii yar tahay kila muddo maanta MP ku jiro guri wada qaatay go find out that's the truth of the matter. So marka magaalada iskugu maatiin uu 2,000 ku soo isma weydiisin lacagta meesha ka keenan inuu pisayno ya CDF munagayo hapo kama peanuts waa lacagtiin because mushaarka noola diiwaanaka is very small then waxa ku imaan unity ya mortgage waxa lagu dhigay mashimiwa waa ina guri qaadato ayagoo guri qabina soo dooranaysin mushaarkooda galiyeen ground ki imaadaan every weekend 203 ka bixi where does that money come from marka iskugu tagtiin members of parliament don't ask for money soo qabta wadadiina tusoo hadii mashimiwa fiir meeshan waa aragteen murko mandaraad wuxuu de every constituency meeqa loo diiba 64 milyan constituency kasta every year 64 milyan loo diiba mayna CDF oo loogu talagalay road maintenance hadda waa arkaysin wadadiina next year ka raadiya kama amta wana 62 milyan ime reflect tuma huyo mtu nyumbani dad waxa wax qabanay soo doorta and that's why you come in as young people because anaka waxaan dhaqan ka dhiganay 5 years hal sano la ruuxa loo durbaanto 4 sano ala calina inika ay siiyeen soo shaqaysta that's what I'll tell you.